Wadsalamantiin asxaabta kusoo dhawaada muuqaal cusub. Waxaan eegi doonaa waa kuma tababaraha cusub ee la filayo inuu qabto xilka xulka qaranka England, maqnaanshaha ciyaartoyga Angel Di Maria iyo sidoo kale xidiga kooxda Atletico Madrid oo doonaya inuu ka tago kooxda. Dhamaadka muuqaalkana waxaan ku eegi doonaa kulamada ugu muhiimsan ee caawa la ciyaari doono koobka horyaalka qaaradda Yurub. Aynu ku bilownay weeraryahanka kooxda Juventus ee Angel Di Maria oo dhaawac ka soo gaaray kulankii ugu dambeeyay ee ay kooxda Juventus ciyaartay koobka Champions League ayaa la sheegay baadhitaano kadib ciyaartoyga Angel Di Maria inuu ka maqnaan doono garoomada muddo lagu qiyaasay 20 maalmood ama 3 toddobaad. Ciyaartoygan ayaa markii hore ka hor intaan baadhitaanada lagu sameyn waxaa la sheegay inuu ciyaartoygani dhaawaciisu khatar yahay, taasoo macnaheedu ahaa inuu seegi karayo koobka adduunka. balse hadda ciyaartoyga Angel Di Maria ayaa la sheegay inuu 20 maalmood oo kaliya maqnaan doono oo sidoo kalena uu diyaar u noqon doono ama uu ciyaari doono ama uu ka qayb qaadan doono koobka adduunka ee ka dhici doona wadanka Qatar dhamaadka sanadkan. isla kooxda Juventusna waxaa si tartiib ah ugu soo laabanaya tababarka kooxda weeraryahankeedii Federico Chiesa kaasoo dhaawac kaga maqnaa kooxda Juventus muddooyinkii ugu dambeeyay. Federico Chiesa ayaa markii hore waxaa la qorsheynayay inuu ku soo laabto kooxda kulankii ay toddobaadkii hore la ciyaartay kooxda Juventus ee Milan, waxaana la filayaa ciyaartoyga Federico Chiesa inuu ku soo laaban doono tababarka kooxda toddobaadka soo socda, maadaama uu ciyaartoyga Federico Chiesa shalay uu sameeyay kulan tijaabo ah kaasoo uu la ciyaaray 19 jirada kooxda Juventus. waxaana la filayaa inuu ciyaartoygani ku soo bilaaban doono kursiga kaydka kulanka soo socda ee ay toddobaadka dambe ciyaari doonto kooxda Juventus horyaalka Talyaaniga. dhinaca kale tababarihii hore ee kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa la sheegay inuu ku dhow yahay inuu qabto xilka tababarka xulka qaranka England kadib koobka adduunka ee sanadan ka dhici doona wadanka Qatar. Thomas Tuchel ayaa la sheegay kadib markii laga ceyriyay xilka shaqada kooxda Chelsea ayaa la sheegay inuu diiday laba dalab ama laba kooxood inay soo dalbadeen kuwaasoo ka ciyaara horyaalka Ingiriiska. sidoo kale waxaa jirtay inay koox ka ciyaarto horyaalka La Liga iyaduna soo dalbatay tababarahan Thomas Tuchel, balse Thomas Tuchel hadda waxa uu ku sugan yahay wadanka England oo waxaa la filayaa inuu ka tagi doono wadanka England dhamaadka sanadkan, waxayna tahay shaqada ugu dhow ama xilka ugu dhow oo qaban kara ayaa ah inuu noqdo tababaraha cusub ee xulka qaranka England kadib koobka adduunka ee sanada 2022 halka la filayo inuu ciyaartoyga kooxda Chelsea ee Reece James uu dhaawac kaga maqnaan doono kooxda Chelsea kulanka Aston Villa, balse ciyaartoygan ayaa la rajeynayaa inuu ku soo laabto kulanka ay kooxda Chelsea la ciyaari doonto kooxda Manchester United. dhinaca kale haddii aynu eegno maqnaanshaha labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona kulanka El Clasico, waxaa tababarka kooxda Barcelona maanta ku soo laabtay daafaca Koundé oo la rajeynayay inuu noqon doono ciyaartoyga ciyaaraya kulanka El Clasico kadib markii uu tababare Xavi ka kalsooni baxay ciyaartoyga Gerard Piqué kulankii xalay ee la ciyaartay kooxda Inter Milan. haddaba Koundé ayaa la filayaa inuu ka garab ciyaari doono Eric Garcia halka uu Sergio Roberto ka ciyaari doono dambeedka midig ee kooxda. sidoo kale golwadaha kooxda Real Madrid ee Thibaut Courtois ayaa isagoo ka qayb galin tababarkii kooxda Real Madrid ay maanta isugu diyaarinaysay kulanka El Clasico, balse weli lama xaqiijin ama si rasmi ah looma sheegin inuu ciyaartoygani ka qayb qaadan karo kulanka El Clasico iyo in kale, waxaana la filayaa inuu ciyaartoygani ku jiri doono liiska ciyaartoyda kooxda Real Madrid ka qayb qaadan doonto kulanka El Clasico ee la soo saari doono maalinka Sabtida haddii aan maalinka Jimcaha la sheegin inuu kulanka seegayay iyo in kale. waxaa la sheegay inuu weeraryahanka kooxda Atletico Madrid ee Joao Felix uu doonayay inuu ka tago kooxda Atletico Madrid bisha January. ciyaartoygan ayaa la sheegay inaanu ku habooneyn qaab ciyaareedka kooxda. Joao Felix ayaa ku soo biiray kooxda Atletico Madrid sanadii 2019 xilligaas oo ay kooxdu ka bixisay ciyaartoygan qiimaha 120 milyan oo euro, waxaana xilligaas noqday ciyaartoyga u dhashay wadanka Portugiiska ee ugu qaalisana taariikhda kubadda cagta. inta kadib ciyaartoygan muu soo bandhigin xilli ciyaareed kamid ah kuwiisa ugu fiicnaa, waxaana hadda rabaa Joao Felix inuu ka tago kooxda Atletico Madrid, balse lama sheegin hadda kooxda uu doonayo ciyaartoygan inuu ku biiro. ugu dambeyntii haddii aynu eegno kulamada ugu muhiimsan ee caawa la ciyaari doono koobka Yurub Liga, kulamada ugu horeeya ama kulanka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah kooxda Arsenal ayaa la ciyaari doonta kooxda Bodo oo kooxda Arsenal inkastoo ay ciyaartay 2 kulan haddana kooxdu waxay haysaa hogaanka gruubkeeda oo waxay leedahay 6 dhibcood. haddaba kooxda Arsenal kulanka caawa haddii ay badiso sidoo kale waxay yeelan doontaa 9 dhibcood halka ay kulanka kala wada ciyaari doonaan kooxda Roma iyo Real Betis. kooxda Roma ayaa ku jirta kaalinta saddexaad ee gruubkeeda oo waxaa gruubka hogaaminaysa kooxda Real Betis oo haysata 9 dhibcood. Real Betis 3 kulan ee ciyaartay 3diiba waa ay badisay oo waxa ugu dambeeyay kulanka ay Roma kaga soo badisay garoonkeeda Olympic. haddaba tababare Jose Mourinho ayaa isku day doona inuu soo galo kaalinta labaad maadaama uu hadda ku jiro kaalinta saddexaad oo uu soo badiyo kulanka caawa iyadoo lagu ciyaari doono garoonka kooxda Real Betis. ugu dambeyntii kulanka ugu muhiimsan ayaa ah kooxda Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford waxay ku martigelin doontaa kooxda Omonia
Manchester United ayaa kaalinta labaad ku jirta sidoo kale gruubkeeda oo waxa hogaaminaysa gruubka kooxda Real Sociedad oo 3 dhibcood saddexdii kulan ee ciyaartay badisay oo 9 dhibcood leh oo Real Sociedad haddii ay badiso kulanka caawa waxay u bixi doontaa wareegga ku xiga wareegga gruubyada halka ay Manchester United leedahay 6 dhibcood oo saddexdii kulan ee ciyaartay marka laga leebo kulankii ay kooxda Real Sociedad kaga badisay garoonka Old Trafford. Manchester United labadii kulan ee kale waa ay badisay oo waxay yeelanaysaa caawa haddii ay badiso 9 dhibcood waxayna gaadhaysaa ama waxay gelaysaa kaalinta labaad. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar subscribe na dheh channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe.